waxaan u arkaa ayaan darre aad u weyn waayo waa corruption-kiyo qof xirsi والله بلا بقول aad baan u soo dhaweynaya xirsi waayo waan soo dadaalay intaa soo dhan u soo samray dawladda Siraayo Chief of Corder والله waan ka xunahay waayaan darre weyn oo dalka iyo guul darro soo hoyatay in xirsi dib loogu doorto dalka xisbiga wadani والله waxaan u arkaa arinta shirweynaha labaad ee xisbiga wadani ee hogaamiyihii hore xirsi cali xaaji xasan shalato lagu doortay waxaan u arkaa inuu xisbiga wadani wadadii guusha cagta saaray dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa oo wax ka weydiinay sida ay u arkaan in gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani loo doorto inuu hogaamiyo xisbigaasi 5 sano ee soo socda xirsi cali xaaji xasan arrintaasi aragtiyo kala duwan ka dhiibtay sidoo aragtaa in shalay loo cumaamaday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan xirsi adduunka maxaafiyo mucaarade weli waxba kamayna aragay kii dalkeeda dadka dhisaa uu ahaado يا مدبريبا أما معارض أما محافظة نقطين كي دلك وحول لسه يا كل مية أعد كائم كلا دورتين نم معارض كم ودني تدعى الحصبي يا كي وحقمنا يبا كل حكم كأما قبتنا أما وين أنا نقوم بيقولون مكان معارض هو دلك دمية وين دلك ما نفيد يا وين النقطة يا إحنا وانو عارفنا إستكنا وحنا كارك من كل شيء قدرنا maxaa tala siin lahayd ugu dambeyn maxaa taliye tusaale soo jeedin lahayd ugu dambeyn taliye tusaale maxaa soo jeedin lahayd ugu dambeyn waxaan leeyahay dalka iyo dadka bay idinka ka wakiila haddaad macaaridka tihiin xirsi xasan waa nin mas'uula waana nin waxqabadkiisa aynu hore u aragnay waan soo dhaweynaa markasta waxaan leenahay hambalyo maxaad ka filaysaa xirsi haddii sida uu ku noqdo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani nin waxaan ka filayaa aniga rayigayga horta xisbi waa kii wasiirka soo hayo waxyaabo fara badan u qabta وأنا هير سمالنا أيوة ذكرنا يا وحقبت كيس يو محايتين هلكو كجتشر هير سمالنا مركم سودوينا يو حرسي على حاج حسن وحوي وجميع في عم وفرين فرعون كلنا دي واحد شراء كان شراء ودي قف بدلاء دي وحوي ما هاينو حزب الجميع على قد الجميع حزب الوطني قاعد بنتهاجرين وانا سودوينا وحقبت كيس إن شاء الله تعالى وانا كاتب دون هذا لها waxaan ugu baqayaa bulshada Soomaaliland inay la shaqeeyaan oo si fiican aad iyo aad baan soo dhaweynaa xirsi cali xaaji xasan waa nin firfircoon oo nin khusheega oo nin aan balanta jarin oo nin maxaan ku rahay wixii aan ku balantaan qabta waxaan qaban kareynaa runka sheega inkastoo aan u dee xisbiga wadani ahayn laakiin ka shakhsi ahaan intaan ka aqaano waa nin mas'uul ah oo xilka qaban karana misanahay runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waa arrin aad iyo aad wanaagsan baan u arkaa runtii ku dayashana mudan waxaan oran lahaa runtaa arrintaa uu shalay cirra ku dhaceen oo shalay sameeyay oo xirsi ku wareejiyay runtii aad waa arrin loo baahnaa sababtoo ah waxa weeyaan imanka xitaa xisbiyadii kale ayay ku dayasho ayay u tahay oo haddii qof ku dhaat xisbiga iska haysto wax noqonaysa oo inuu qof ku dhaat iskaga dhagan yahay dadkii kale xisbiga la wadayna ay Kenya jabaana warkaan meel qof u xidhan oo aan rajo ka lahayn marka arrintaas waxay ku dhawaaqay oo shalay tii sameeyay waxaan oran karaa labada xisbiya kalena inay ku daydaan weeyaan waan arrin oran karaa wax xisbiyadeen iyo ka koray oo waxa weeyaan xisbigu marba meel buu taagan yahay laakiin inka xisbiyadu way koreen marka waxaan leeyahay arrinkaa shalay sameeyay cirro xisbiga wadani xisbiyada kalena wadadaas oo kala raacaan anigu waxaan arkaa arrinta guul soo hoytay Soomaaliland baan arkaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaan ku faraxsanahay xisbiyada in kootiska xidhnata ma aha way sida cirro loogu daydo oo sida uu cirro u wareejiyay aanu qofku shakhsiyadiisa danayna ummadda qaranka u danaynayo anu uma arko wanaag sababtoo ah kuwii ka horreeyba waxba kama hayno marka maxaa laga shalay tole wasiiradii wuxuu ahaa golaha wakiil iyagoo madaxtooyada ku jira inqilaabka sameeyey ee dalka ku sameeyey ee dhowr waay maantana ninkii oo madaxweyne filaya anu wax buu soo kordhin maaha wax buu ka ridi mooyaane dalka waxa weeyaan horta arrintan markaynu eegno nin inagu cusub maaha xirsi xaaji cali waa nin roolkii ugu badnaa ee dawladdii Siraanya ka qayb qaatay oo ahaa wasiirada aynu eeda ku sheegno isla markiibana dalka inqilaab ka riday oo adeerkii inqilaab revolution blood la isku kiciyay 720 wasiir ayuu keeriyay wuxuu ka sheekeeyay buug uu qoro xafaayadii adeerkii lagu xidhi jiray
afartan jir 40 milyan haysta ayaan ahay buu yidhi waxa weeyaan haddii ay Somaliland ninka tuugaalada xisbigan ku wareejiyay I don't know what the future will be tomorrow mid baan adeer ku sheegaya miyaa la waayay nin aqoontiisu ku filan tahay oo dadka hoggaan u noqda oo xisbiga ka soo baxa oo kaadiriintii xisbiga wadani ka mid ah oo lagu wareejiyo marka ummadda yeynaan been u sheegine waa tuugiyo tuukalkaal arrinteenu aad iyo aad baan ugu taageersanahay in xirsi loo doortay gudoomiyaha xisbiga wadani waayo waa nin in badan soo shaqeynayay oo siyaasiya oo waxyaabo badan ka soo shaqeeyay oo muxuu ahaa dawladda in badan ku soo jiray oo madaxtooyada ahaa marka anigu waxaan qabaa in uu ku booska ninkaas uu qalmayay oo ku saxnaa oo ku banaana aad baan u taageersanahay gudoomiyaha shalayto xilka loo dhiibay waa ku kalsoonahay mid cadaaliya oo ummadda isku haruub wax ugu shuba ilaahay ha ka dhigo waana taageersan waan soo dhaweynaa gudoomiyaha cusub ee xisbiga mucaaradka waxaanan isleenahay isbedel aad iyo aad u weyn buu keeni doonaa insha Allah bismillaah karim waxa weeyaan gudoomiyaha xisbiga waxa arrin wanaagsan buu sameeyay ninku markuu madaxweynaha isu sharaxayo waa in uu wareejiyaa oo siyaad barra ahaanin ahna siyaad barra muxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ahna Charles Reegas Maxamed Siyaad Barre waxa basiga isku haystay markaad isu sharaxayso madaxweynaha gudoomiyaha xisbad tahay waa inaad si macaan u wareejisaa marka aad wareejiso waa inaad dad saaxiibka ku wareejisaa iyo midalka iyo dadkaba wax tara ma ahay waa in qabyaalada laga baxaa waxa anigu aan aad iyo aad ugu hambalyeynaysaa waa arrin wanaagsan oo saamiyo xisbiyada kalena waa in ay ku daydaan waa in nin waliba markuu sharaxayo ku wareejiya waa inaanu kursiga ku dhagin waa inaanu hantida qaranka waxaan waxba hayn ku qasaarinin waanaanu ku hambalyeynaa iro 90% waanu maadsanyahay madaxweynayaasha kalena ha ku daydaan horta waa nin siyaasi oo Somaliland horta sharaf ku dhaxla laakiin uu ismalihi waxba ku soo kordhinaya xilka uu cirro magacaabo ismalihi gudoomiyaha loo dhigay waxba ku soo kordhinaya Somaliland waayo wuxuu ahaa wasiireen hore u soo aragnay ismalihi markii xilaalka hore aynu ku aragnay tan wax kaga bedeli kara Somaliland waa tii hore ku fashilmay wallahi waxaan u arkaa arrintaas shirweynaha labaad ee xisbiga wadani ee hogaamiyihii hore Xirsi Cali Xaaji Xasan Shaleeto lagu doortay waxaan u arkaa inuu xisbiga wadani wadadii guusha cagta saaray waxaan u arkaa mid wada cusub oo Cabdiraxmaan Cirra jeexay oo aan Somaliland hore uga dhicin baan u arkaa horta waxaan u arkaa dabaysha xagaaga horta haday duc jeesato horta lagama hor yimaado wala raacawn waxaan u malaynayaa horta haddii uu doorasho dhacdo waxa xaqiiqo ah in xisbiga wadani horta inuu guuleysanayo xirsi la'aanba laakiin hal qodob un baan u sheegi lahaa maaragtay Cirro Cabdiraxmaan Cirro waxaan oran lahaa xisbigu xisbi qaran ha noqdo oo golahan maaragtay golaha fulinta inuu wax ka bedelo ayaan maaragtay kulli anigu soo jeedin lahaa sababtoo ah markii hore xisbigu xisbi reer buu ekaa laakiin waxaan jeclaan lahaa u sheegaya inuu xisbi inuu reernimada ka bedelo xisbi qaran u muujiyo laakiin xisbigu insha Allah taala inuu guuleysanayo ayaan u arkaa waxaan u arkaa ayaan darro weyn waayo waa ragii ma taqaan ummadda soo dhacay ee ma taqaan magaciisa Hiiraayo ku soo ciyaaray ee markii dambana ma taqaan inqilaab ka dhex sameeyay ma taqaan dawladda dhexdeeda wuxuu soo kordhinayaa ma jirto ma faat waxa la wadaamay Cirro sidii hore u dhaantay waxaan arkaa wax soo birinay wadana tala markii hore u dhacay guuldarrada dawladda madaxaya waxa la wixii soo birinayso Cabdiraxmaan Cirra marka ku qoostay iska gacar xisbiga uu rajo dhiga hadeer rajo loo taagan yahay xirsi baad sheegtay haddii Cabdiraxmaan Cirra ku soo noqdo waxba keenay maayo xisbiga markii horena sidoo dhacun hadeer noo dhacaya marka waxaan la yarto xirsi waanu hambalyeynaa dadna shacabka Somaliland soo kale waxaan aad ugu hambaleynayaa musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro والله سهل لفتي سوق اسمه وحنا أحسن بوسمي تصاع إنه حسبي بوريتشيو إنك استله عاش سيب العرية قلنا بري قا كلنا ده على سوق اللي حسبي دي تنيه حسي مركب ورا حسبي قول عبا كم يتبوها وحيو سوق كردينا ما نعرق مركب إحنا مثلا قلنا كل مية كسو قاضي وطني سوقش وحلا وحي حسبي سوق كوري كران إننا نشري منا ونو هم حدنا قيا عبد الرحمن عرو سفي عم بيقولوا يسيون قولي سفي حسبي قولي تقف كسو الله قرا رجل نمد لي ماتو أو باريرين كاسي شو لهم بشل أيون كلي لكنه ما أركو قلنا عرو رتيد
weliba raggii ugu khatarsanaa dawladdii siiraayay waxyaabo badan lagu eedeeyo inay u soo kordhin karaan waddani laakiin waxaa leeyahay guul insha allah xisbigan waxaan u rajaynayaa guul waxaan ambaliyaynayaa xirsi oo isagu horta markii horeba ka ahaa dadkii uga caadaa ka tirsanaa laakiin waxaanu ku soo baxin guddoomiyenimada kuma soo baxayo hana isku ceebaynay haddii ay tahay xagga guddoomiyenimada xirsiga waxaan u arkaa ayaan darre aad u weyn waayo waa corruptionkii oo qofa xirsi yaa corruptionkii oo qofa weeye markaa waa ayaan darre aad u weyn halkii maxkamad laga keeni lahaa ninkii kandabgareeyey waddanka ninkii adeerkii waxaad ogtahay ka sheegay ninkii dalka iyo dadkaba ceebeeyey ma aha inuu isa soo hortaago kulmiyana waddanina waxaan leenahay waxaan maaha xisbinimo qarannimo dadnimo dadku ma afar qof oo tuugo godgore galbaah waxaan leenahay waa ayaan darre aad u weyn ummadda somalilanna waa ku ceeb dalkana waxaan leenahay ninkaasoo kale maxkamad ha la keeno maxkamad qaran wallaahi waan ka xunnahay waa ayaan darre weyn oo dalka iyo guuldarro soo hoyatay in xirsi dib loogu doorto dalka xisbiga waddani adoo maatan xirsi muxuu xisbiga ugu soo kordhin karaa bay kula tahay waxbaan waxaan aaminsanahay qabyaaladdu dee uu ku shaqeeyo mooyaane wax aqoonaya kartiya ma soo kordhin karo waa dadka iskaga hor iyo dib u wareegaysanaya yaa haddii madaxweyne dalka u qalmaa laga hadlaayo ama la dooranayo iminka madaxweyne uu joogaa dalka dhisoo hagaaji cirna nasiibkiisu qabaa laakiin waxaan ka hadlaynaa xirsi uma qalmo in halkaasi waa ayaan darro dalka u soo kordhay baan leeyahay wallaahi bilaa boqol aad baan u soo dhaweynayaa xirsi waayo waan soo dadaalay intaa oo dhan u soo samray dawladdii silaayo chief of corder ninka kaliya ka tilnay imikana waxaan isleeyahay halkiisu wuxuu gaari karaa madaxweyne insha Allah waana soo dhaweynaa cabdirasaaq axmed aadan tayga telefishanka caalamiga Sum News Hargeysa abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus